wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee Soomaaliland oo maanta kulan la qaatay gudida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada kulankaasi oo ahaa mid albaabadu ay u xiran yihiin waxa kulankaasi markii uu soo dhamaaday warbaahinta uga warbixiyay gudoomiyaha gudida arrimaha dibadda ee golaha wakiilada kulmay maxaan ku dhahay gudida arrimaha dibadda iyo xiriirka caalamiga ee golaha wakiilada iyo wasiirka arrimaha dibadda Yaasiin Professor Yaasiin ayaa halkan aanu ku kulannay shir baanu lahayn annaga u yeedhnay waxaan doonaynaa maxaan ku dhahay siyaasadda arrimaha dibadda ee Soomaaliland guud ahaan iyo gaar ahaan shirarkii maxaan ku dhahay ka dhacay Djibouti Addis Ababa iyo arrimo badan oo maxaan ku dhahay xiriirka caalamiga la xiriira ayaan runtii ka wada hadalay inkastoo runtii shir dhowr saacadood ahaa mid magaranaysaa ugaba waan ka cudurdaarayna laakiin guud ahaan marka soo koobo aad iyo aad baanu runtii ugu qanacnay sida wasiirka iyo dawladda xukuumaddu ay u shaqeynayso ku yaalana shir ku wada galay aaraa badan baan iyo xog badan iyo aaraa badan baanu isdhaafsanay oo aanu arko inay aad iyo aad loogu baahnaa wixii tafaasiirana haddii aad u baahataan waxaad sii waraysan doontaan xogaha iyo guddigiisa laakiin waxaan arkaa mid faa'iido loo baahnaa inay tahay intaasi kadib wasiirka arrimaha dibadda oo warbaahintu isku dayday in ay wax ka weydiiso ayaa ka gaabsaday guddigan inaan u warramo baan meesha u imid Cabdiraxmaan Erdogan